gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe markii uu ka hadlayay munaasabada kowda Meey maalinta shaqaalaha adduunka waxa uu hadalka ku bilaabay gabi ahaanba diidmo waxana uu dhaliil dusha ka saaray xukuumadda gaar ahaan hay'adda shaqaalaha isagoo carabka ku dhuftay inay cadaalad darro jirto isla markaana ay arinta si murjinayso shaqaalaha malihin inagu ilaa waxa uu socod in shaqaal abuurna weey waxa leeyahay laakiin inta shaqaysadana xuquuqdooda hala siiyo qabiilkii iyo eexdiba way xarkay soo goostay intii dawladdan timid maxameduna ciid oo badan tahay waxa la ii sheegay marka la advertise garaynayo shaqooyinka oo reer dadku waa la shaqaaleeyay oo dadku ma la tusiya waa inda saar jirta hay'adda shaqaalaha waa inay shaqaalaha ilaalisa mid dawladeed iyo mid private dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada Boorama ayaa iyaguna waxa ay qabaan dareenno kala duwan oo arrintan ku aadan ومالك فرحة أو مالك كود المي مالك الشقارة وينها توجه شعور كذا وطن عادي عاد ولا ستة عادي عاد والله فرح السنة لكن سيدنا شغالان في شغال الله مجتمعين هنا يستقبلين وضدكم بقول كي روح لوران كافة طبعا هو يسكع عمل لايين مركا كل معنا بدل ما سمعينه يسبع سنة dhalintii jaamacadaha ka qalin jabisay sanadii hore ayaa waxa ay qabaan waaya aragnimo waxaan nahay dhalintii ka soo baxday jaamacadda Amuud dawan yar ayaa shaqadeynay waxyaabo shaqa wali gacanta kuma dhigin sidoo kale kuwa sanadkan aynu ku guda jirno qalin jabinaya ayaa iyaga la fahantoodu waxa ay qabaan walwala waxaan u maleynayaa walwalka ugu weyn ee hay'adda ardayga haddaan nahay sanadka soo baxay shaqo la'aan iyo loo shaqo tagi doono waxa kale oo xusid mudan oo arrintan isaguna dhinac kale ka istaagay xildhibaan Cabdiwahaab Bashiir dhalinyarta wax baratay ee aqoonta lana waxaanu leenahay la yimaada fikir markaas shaqo abuurineed oo shaqo ku abuuraysaan annaguna aan markaas aan idinku garab siino xaaladda shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta ayaa dhalinta la fahantoodu waxa ay tilmaameen dareen ah meesha uu ku hagayo iyagoo xukuumadda canaan dusha ka saaray yaabaha qaranka keenayna waxa weeyaan waa dawladda oo ka tagtay cadaaladii shaqo la'aantii oo sida haysa iyo tahriibkii oo farabad dadana waxa ku kadibay tahriibku waxa weeyaan shaqo la'aanta ay waalidkii oo 16 sano kusoo wax soo baray oo maanta waxba soo galay isagii uu ka soo qaadan soo kusoo baray kaas waxay noqotay inay dhalintii iskaga yaacdaan dawladda waxa leena cadaaladda lagu alla eego dadka si kastaba ahaatee waxa laga joogaa muddo 3 sano ah markii dhalintan aad arkaysaan ay si baaxad leh u codeeyeen xisbiga talada haya kulmiye waxa ugu ballaaran ay sugayeen waxa ay ahayd isbedelkaasna waxa uu salka ku hayay shaqo abuur ilaa maanta ay muddo 3 sano ka soo wareegtay dhalintan isbax walba way soo kacdaa suuqana ay timaadaa shaqada ugu weyn ee halkan ku hayaan waxa ay tahay inay koob shaaha ka cabaan Abdullah Ali Yusuf Boorama